بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. إلهي سبحانه وتعالى ما هذا سكله وبرنامجكي وعي قلنت بالشدة خاصة لكن ما أنت واحد ربنا أوجه هذا النوع ريرك وناكسن أنت أنا مركز دي حجلين وحاجة رداد بدن أو ريرها كهل رنتي أما هاي سفرين أما هاي سقبين dad kaasna inta badani ogama hadlaan si anshax iyo asluub ay ku dheehan tahay dadkaasi markay ka hadlayaan waxa wanaagsan inay uga hadlaan si reerka Soomaaliyeed waxtar u leh sababtoo ah reerka Soomaaliyeed haduu wanaagsanaado waa bulshada oo wanaagsanaatay bulshadaas ay u jeedaahi midba reer buu ka yimid haddii marka la wanaajiyo reer walba dhixdiisa la wanaajiyo ilmaha la wanaajiyo tarbiyadooda la wanaajiyo waa mawduucan ka hadli doonee mujtamacaasi waa wada wanaagsanaada waxaan runtii aad iyo aad uga xumahay oo aad iyo aad ula yaabaa qolada xataa ka hadlaysa arrimaha reeraha ka hadlaya ama reeraha isqaba ama reeraha isfuro kuwa ka hadlaahi inta badan waxay ka hadlaan waxa galmada ku saabsan waxa sariirta ku saabsan bay ka hadlaan waliba waxay ka sheekeeyeen waxaan dhaqankayaga iyo asluubtayada iyo Soomaalinimadayada aan ku fiicnay waxaan aad iyo aad uga xumahay dadkan horo maray oo nolosha horo uga maray oo laga yaabo in badan oo kamid inay ku nooliyeen ama ay ku dayanayaan inay qof u bambaxay oo lagu yaqaan maahane qofka caadiga ah ee wax bartay oo shaqeysta bulshada qiimaha ku leh waxas kama hadlo oo ka xishooda isagoo kaafir gaal mulxid ayuu wuxuu ka xishoodaa dad annaga naga mid ah oo Soomaaliyeed waxay inta badan ka hadlaan marka dadkaas waxaan kula talin lahaa si barnaamijkaas ka hadlayaan oo is deeynayn oo is ka aamusayn waxa wanaagsan oo bulshada waxtar u leh inay ka hadlaan ba wanaagsan haddaan u soo noqon marka mawduuca wacyi gelinta maadaama aan u baxshay bulshada reerka wanaagsan ayaan rabaa inaan ka hadlo reerka wanaagsani waa reerka odaga iyo aabuhu ama waalidku is jecel yihiin isku kalsoon yihiin ismaqla isdhageysta waliba markay arrimaha muhiimka ka wada hadlayaan oo kale dadka iyagu badana dhaqan ahaan waxa laga yaabaa in badan oo kamid ah inaysan si wanaagsan isku dhageysan afar shay baa laga rabaa marka odagu kula hadlayo xaajiyo ama marka adigu xaajiyo gabadha walaashahay ama xaaska kula hadlayso afar arrimood waa muhiim waay koo markay kula hadlayso wax alla horta waxa haysid inaad deysid oo ayada dareenkaaga aasiisid dhug u yeelatay waxa ay sheegayso waa qodobka koowaad inta markaa dhug u yeelatid oo dhageysatid oo wax alla waxa haysid u kaadisid ayada ixtiraam bay dareemaysaa qodobka koowaad waxa waaye inaad soo qaabishid qofka kula hadlaya waad ogtahay qof alla hadlaysid arrin muhiim ah kala hadlaysid haduu sii jeedo maxay macna sameynaysaa qofkaas muxuu dareemayaa وأنا سوتشي ستيد وجهي أنا كوسو قابشيد حاجة كلها الله يسمع حاجة كلها الله سوتشي سجاسنا وأنا الراعي سقطك صدحات إن ليه زي إن ده وأنا سهيان قضب كأفرادنا وحواي شركة هذا اللي وأنا قدرتها شركة هذا الكوحواي أنا تريها جالس صحوي هي أما أبو أما معان أما حبيبي مركز شكوان سنة يا حبيبي يا معان يا شوكولاتيني iyo xabiibi baa socotay laakiin mar alla markii guriga la isugu yimaado markeedaan taabad doona waxaas waaba iska yaraadaanba arrimaha muhiimka bas baa laga wada hadlaa haddii marka reerka sidaas aan soo sheegay uu yahay ilmuhuna way isjeclaanayaan sababtoo ah ilmuhu waxay fiirsanayaan ay ku kobcayaan hooyo iyo aabe isjecel oo is ixtiraamaya oo ismaqlaya ay ku korayaan markay ku koraanna ayaga dhexdooda ayaa isjacaylkaas iyo isku kalsoonaantaasi ay ka muuqanaysaa